iyadoo shalay dagaal xooggan ka dhacay deegaanada hoostaga magaalada Hurshe ee gobolka Galgaduud ayaa wararka saakalkaasi inaga soo gaaraya waxay ku waramayaan in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa labada maleeshiya beeleed. Wararku waxay intaas ku darayaan in xiisadu saaka ay tahay mid aad u kacsan maadaama markasta la filan karo dagaal xooggan oo dhexmara labada maleeshiya beeleed. shalay ay ahayd markii dagaal aad u xooggan uu ka dhacay deegaanadaasi kaas oo ay ku dhinteen ilaa 12 qof halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen. dagaalkan u dhaxeeya labada maleeshiya beeleed ayaa la soo warinayay inuu salka ku hayo khilaaf ka dhashay barkado iyo sidoo kale dhul daaqsimeed halkaas ku yaala oo ilaa haatan aan wax xal laga gaarin. dhanka kale odayaasha dhaqanka culimooyinka iyo waxgaradka labada beelood ayaa waxay wadaan dadaal ay ku doonayaan inay ku qaboojiyaan xiisadana mar kale ka soo cusboonatay gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanada hoostaga magaalada Hurshe halkaas oo iminka ay ka tagan tahay xiisad colaadeed oo u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed. ilaa haatan ma jirto wax war saxaafadeed oo ka soo baxay maamul goboleedka Galmudug taas oo ku aadan sida loo qaboojin lahaa xiisadan colaadeed. ma ahan markii ugu horeysay ee labadan maleeshiya beeleed ay halkaasi ku dagaalamaan iyadoo ay sidaan oo kale dagaalo lagu riiqmay ay halkaasi ugu dhexmareen. waagii ugu dambeeyay deegaanada maamul goboleedka Galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud waxaa ku soo badanayay dagaalada ay iskaga hor imaanayaan beelaha halkaasi wada degaa iyadoo ilaa haatan maamul goboleedka Galmudug oo arintaasi xal u leeyahay.